بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu ah maxamed ismaan cabdi maxamed gacan oo ku nool waddanka Sweden gaar ahaan magaalada Jönköping. sanadkan silsilad aad u fiican oo kaftan oo dadka qaar u qaateen xumaan ama ay dadka xanuunsanaya uqdada wali ku jirto qabiilka ku jira wali ay arkeen xumaan. silsiladaas oo inoo abuuray buugaankeena weyn ee dhako ayaana isleetay cirka darso horta mar hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliland meel kasta joogto. waxaan leeyahay sanadka islaamka sanadkiisa ilaahay ha inaga dhigo sanad iftiraafan helo oo aynu horumar gaadhno iyo caafimaad iyo bashbash iyo barwaaqo. waxaan kaloo gaar ahaan ka salaamayaa dhammaan bahda shaqaalaha Garwanaag News. waxaan salaan aan qiimaheeda la qiyaasi karin aan u gudbinayaa dawladdeena hirgelisay waxyaalo badan oo aynu u baahnayn. insha Allah la soo hoyn doonta ictiraafkaas leeyahay. haddaba intaan kaga sii gudbo tixdii yareyd ku darsado silsiladan siiraaya gabaydi waa tiri gaada xarafka gabayada ka kaca dhanka gasbiciyadu leh aniguna sidii gaariyaan kee gariirshaaye geeraaradii timacadiyo gabay aqoontiisa goobtaan istaagana walle doqon ma soo gaadho aan soo gaasho arar waa giraan iyo gabay macaanayse haddii aan gafana faysalow waadi garansiini gaada kale salaan guud ahbaan soo gudbinayaaye gobolladeena Somaliland gabi ahaantoodba gelinkii yimaadaba xisbay soo galbinayaane galad eebba weeyo guusha siilaanyo garaalaagu in baan fahmayn dayaxinaan gaadhnay guurtideen dhammaantood gurjob bay sameeyeen tirakoob gugii hore geed saray ku laaleen gurub soo korayana xeerkii guracanaa ka gudbay yidhaahdeen. silaayaa gabiyo yidhi kuwa gubaye goolaaftan weeyaan ee dalkii qabiil ka soo guuriye intuu badaha soo galo qurbaha noogu soo galaye in yaroo la wada garanayo oo uu ka galay dhuuxa farta anigu kuma godaye waan gujinayaaye goobaha dhaqaalaha ka arag shinnada guud saaran goblan tala adduunyoy ayuu hore u yidhi haweenku. garcadeen dhammaantood tuuneer ayaa galay gabay wuxuu ka yahay 1 hawdka soo galuhu 2 iyo gabadha kii xiray goolka cajiibka leh dhaka geesi inuu yahay geeyigeena eedil guul uu la jecel yahay gaaridiisa daayo god kastood ku tuurtaan ummadiisa inuu gabo ama uu ka gaabsado maankiina yay gelin. gogaabwaanow hadaba dhakan la hadlaya gogaabwaanow hada gogosha fidiyo gaariyana u diido hadraayo waa soo gelin goor horeba sheegee ma erey ugeeyo afray la guuxa kantaal kula haleelo joogdu gabay afkaagii misaabeyga qaadus qabashada yaqaano guranaya ereyada. wabillahi tawfiiq. salaamu calaykum dhamaantiin.